deeqaha dawladda Turkiga ugu deeqday Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay la soo gaarsiiyay magaalada Taleex iyadoona raashinkan ay bixisay hay'adda bisha cas ee wadankaasi Turkiga waxaana deeqdaasi soo dhaweeyay shacabka ku nool magaalada Taleex iyo dhamaanba tuulooyinka hoos yimaada isla markaasina ka codsaday hay'adda bisha cas ee wadanka Turkiga in deeqaha ay bixiyaan sidan oo kale saamigooda loo soo gaarsiiyo deeqda raashinka ayaa tii ugu badnayd ee soo gaadha magaalada Taleex waxaana deeqdan wakiil uga ahaa hay'adda bisha cas ee wadanka Turkiga shirkadda Amal Multi Service Transportation iyo NGO-ga SRO iyaga oo sheegay in raashinkan loogu talagalay dadka danyarta ah ee ku dhaqan xarun taariikheedka qadiimiga ah ee magaalada Taleex raashinkan ay bixisay hay'adda bisha cas ee wadanka Turkiga ayaa si nabadgelyo u soo gaaray magaalada Taleex iyo waliba dadkii loogu talagalay raashinka ay bixisay hay'adda bisha cas ee wadanka Turkiga ayaa waxa wakiil ka ahaa Cabdicasiis Axmed Maxamed shirkadda Amal Multi Service Transportation iyo Sheekh Aadan Wali oo ka socda NGO-ga SRO oo iyagu si wada jir ah ugu wareejiyay cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka Taleex raashinkii mucaawimada ah ay soo bixisay hay'adda bisha cas ee wadankaasi Turkiga waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Cabdicasiis Axmed Maxamed oo ka socda shirkadda Amal Multi Service Transportation isla markaasina ku wareejiyay NGO-ga SRO bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waxa sharaf weyn maanta noo ah hadaan nahay shirkadda Amal Transportation ka in aanu raashinkii bisha cas ee Turkigu bixisay ay ugu deeqday degmada Taleex ugu tala gashay qaybteedii 200 oo tan oo ka kooban 10 baabuur oo aad arkaysaan 10kiiba inaan mid ka maqanayn halkaana ay taagan yihiin oo ay sidaan 200 oo tan oo u dhigma 4000 oo kiish marka loo xisaabiyo miisaanka 50 kiilo oo 100 tan sokor tahay 100 tan daqiiq tahay in dhamaantii aan ku wareejinay soo gaarsinay deegaanka si nabadgelyo ah kuna wareejinay NGO-gii ay u xil saartay hay'adda Turkiga ee bisha cas kuna wareejinaya diyaar u yihiin odayaashii deegaanka dhamaantood iyagoo isu dhan oo la isla ogol yahay si nabadgelyo ku soo gaaray waxaan kaloo dadka u sheegaynaa iyo hay'adaha in ay nabadgelyo tahay Taleex wixii loogu deeqaa ay iman karayaan cid kasta ba soo gaarsiin karto nabadgelyo ay ka jirto wax ribaato ka jiraan aanay jirin odayaasha deegaanka iyo dadka deegaanka si fiican oo qalbi furan loo soo dhaweeyay raashinkiina diyaar u ah inay kula wareegaan gawaardii nabad qab alxamdulillah intaas ku soo koobaya waxaan ku wareejinayaa Sheekh Aadan oo ka mas'uul ah NGO-ga raashinka wareejinaya isagana ka wareejinaya anagu waxaan nahay transportation si nabadgelyo baan ku keenay raashinka waa dhameystiran yahay waa 100 tan oo sokor ah daqiiqa waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala raashinkii loo soo rabay Taleex oo dhammaan 10 gaari oo tankiisu ahaa 100 raashinkaas oo ay bixisay ururka bisha cas ee Turkiga ay ugu deeqday degmada Taleex raashinkaas oo si nabadgelyo ah ku soo gaaray Taleex waa alxamdulillah rabbil caalamiin maanta aanu ku wareejinayno odayaal isku dhaf ah oo reer Taleex ah oo ka kooban cuqaal iyo odayaal iyo culimo iyo waxgarad raashinkaasna si nabadgelyo ah aanu ku wareejinay aadna arkaysaan qalcadii taariikhiga ahayd ee Taleex iyo sidii raashinkaasi iyadoo gawaaridii oo dhan halka safan u tuban yahay 10 gaari iyo 200 oo tan oo u dhigma 4000 oo kiish waxa markaa wareejisay oo ku wareejisay odayaasha Taleex ururka SRO Somali Relief Organization marka saasaan ku wareejinay waxaan uga mahad celinaynaa Turkiga iyo ururkiisa bisha casba ma hadda ay soo gaarsiiyeen Taleex sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay cuqaasha iyo waxgaradka la wareegay deeqdaasi isla markaasina u mahad celiyay dawladda Turkiga iyo hay'adda bisha cas ee wadankaasi Turkiga isla markaasina ka codsaday in ay sidan oo kale u soo gaarsiiyaan deeqaha ay bixiyaan magaalada Taleex iyo dadka ku dhaqan waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay Caaqil Cabdirashiid Cali Shire Shiine bismillaahir rahmaanir rahiim ilaa baa mahadleh waxaan aad ugu mahadnaqanaa shirkaddii siday iyo hay'addii nagu soo wareejisay raashinkan waana gudoominay dhammaanshana waan ugu soo gaaray
annagoo ka kooban meelaha deegaanka degmada Taleex degan ilaa tuulo ilaa degmo oo halkan goobtan ku dhan waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqanaa hay'adda bisha cas ee Turkiga ah ee mucaawinada bixisay iyadoo halka dhabarka ugu haysaana ay tahay silsilad meel taariikhi ah oo dhismihiisa uu ka qayb qaatay Turkiga qarnigii 19aad 1913 baa dhismaheeda la bilaabay 18 iyadoo wali qabiya oo dhismaheedana sheesku ka kacay waa bar ugu filan taariikh qolada Turkiga ah anna deeqda maanta ku gudoomanayno isaga taariikh albeega u ah aad baan ugu faraxsanahay deeqda dowladda Turkiga oo walaalaha ay soo gaarsiisay dadkooda walaalaha Soomaaliyeed waxaan codsanaynaa raashinka wax ka muhiimsan baan u baahanahay wax qabad ah waan ka codsanaynaa dowladda islaamka oo Turkiga sida kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka biyaha iyo waxbarashada caafimaadka wixii naloo qabanayo waxaan codsanaynaa in loo ku bedelo raashinka waxqabadka bulshada waxaan halkan uga mahadcelinayaa dowladda Turkiga hay'adda bisha cas jooga anagoo ah odayaasha deegaanka degmada Taleex shirkadda amal jooga saaro iyadoo ay ku timi deeqdaasi si nabadgelyo ah ay ku timi haddana lagu qaybinayo lagu wareejiyay dadkii loogu soo talagalay yaashii garadkii mucaawimadii uu soo diray oo